السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيارتا سو دواada waxay noo socday course-kii la magacaabay CCNA video hore waxaan bilownay chapter-kii labaad oo ka hadlayay fundamentals of Ethernet LANs maadaama aan local area network ka soo waranay maanta waxaan ka warrami doonaa qodob muhiim ah waxaan ka warrami doonaa hal qodob oo muhiim ah maadaama video hore aan ka soo waran waxa loo yaqaano local area network ahaydna shabakada ay leedahay ka dhisan hal meel haddaba maanta local area network baan laba u kala qaadaynaa local area network laba loo kala qaybiyaa waxaa loo kala qaybiyaa laba nooc baa loo kala jebiyaa waxa weeyaan ma haddii local area networkaas ay ka dhisan tahay hal guri iyo hal xafiis oo meel ama hal guri oo kala ka dhisan ama hal xafiis oo yar waxaa loo yaqaanaa laankaaga soho lanis waxaa loo yaqaan soho lanis baa loo yaqaanaa soho lanis baa loo yaqaan qodobka ka meel misla dhigna saab laakiin haddii local area network ay iska leedahay shirkad iska leedahay ama xafiis weyn ka dhisan waxa loo yaqaan enterprise LANs enterprise akaan ku qoro e n t e r p enter r i s e LANs baa loo yaqaan enterprise LANs aan ku celiyo marka qodobkaas waa muhiim waxaan ku ri local area network aan soo garay inay tahay shabakada ka dhisan hal meel ayaan laba kala jibinaa war halkaaga meel ma haday noqoto guri iyo wixii kala la mid ah iyo hal yar xafiis home mise haday shirkad weyn local area network aas ka dhisan tahay labadaas loo kala jibinay hadii shabakadaada localka ay ka dhisan tahay hal guri sida guriyeen oo kale LANs ka dhisan oo kale waxa loo yaqaanaa soho LANs سلفنا لكن هذه اللان كاسو لي leedahay shirkad weyn ama shirkada waaweyn kombiyuutarada badan ay yaalana waxa loo yaqaan enterprise LAN baa loo yaqaan enterprise LAN baa loo yaqaan sax inta meel faantay hadaba inta dad la faantay video waxaan ku eegi doonaa nooca koobaad ee loo yaqaano nooca koobaad ee soo hoos kala LANs soo LANs ka loo yaqaan ayaa video ka warramay video soo soo ka warramay local area networks ka ama LANs ka noocaisa loo yaqaano enterprise LANs ka qodobka meel isla dhig هذا واحد سؤال سو هلانس محاط horta soo halanis waxa leenahay waxa loo soo gaabiyay esta hore waxa loo soo gaabiyay waa small baa loo soo gaabiyay oodana waxa loo soo gaabiyay waa office baa loo soo gaabiyay heestana waxa loo soo gaabiyay waa home oodana waxa loo soo gaabiyay waa office marka waxa la small office home office ama waxa loo yaqaanaa maktabada saqiira wal maktabati albaytiya hadii af carabi midho guud waxa leedahay loo yaqaanaa shabakati المحلة الافتراضية قريتين كده ويا ديران لكن أفكار كشيء هذه السوها لا نسلو جدي وحليها هاي وشبكتي المحل واحد نسا وشبكتي المحلية المكتبة البيتية والمكتبة الصغيرة أي الله يقانا أي سوها لا نسلو يقانا أفصومال واحد كنا قلنا سا شبكة أما الله يقانا وشبكة قوبيدا كادسان حال أوفيسوير ama hal guri ka dhisan ayaa loo yaqaanaa soo LANs af Soomaali iyo af Carabi English ku sheegnay salama fahmaysaa marka soo LANs hadii lagu diiyo waxa leedahay maadaama magaceedu waxa loo soo gaabiyay garaad waxa leedahay waa one of the most common local area network deployments waa nooc kamid ah noocyooyinka local area networks ila nooc kale jira loo yaqaan enterprise LANs hadaba qeexitaan hadii lagu diiyo waxa leedahay waa computer waa shabakad LAN oo aad u yar taas waxay ka dhisan tahay ku dhisan tahay waxa yaala Ethernet switch baa yaala oo sawirka kaaga muuqata switch iyo hal router oo kan ah iyo hal printer oo kan ah iyo dhowr computer oo computerka shabakada ka dhisan hal switch iyo hal router iyo dhowr midho computeraayo iyo printer yariyo iyo scan iyo qalabyada noocaas aad ka yar hadii shabakadaada ay leedahay waxa loo yaqaan soo LAN laakiin hadii shabakadaada ay yaalaan 10 switch oo kale 7 router oo kale 100 computer oo kale 45 printer oo kale taas enterprise LAN bay noqonaysaa oo wixii baa batay laakiin hadii dhowr computer ay yaalaan laba midho mobile ah shabakada ku soo xidhan haduu alla idmo hal printer hal router oo qura haba iska daciisanaaday waxa loo yaqaan waa soo LANs waxa loo yaqaan soo LANs baa loo yaqaan marka soo LANs in la meel leena dhigay baan fahmiyaa sawirka haddaan soo balaari waa ka waxa yaala hal router baa yaala halka router wuxuu kuu saamaxayaa inaad internetka ku xidhanti
routerka muxuu qabtaa waa gaari doona laakiin faagud waxaad la haysaa switchka iyo routerka waxa ku kala duwan waxa weeyaan switchka wuxuu ku saamaxayaa in computerka halkaa yaala uu computerka kala la xidhiidho sidoo kale computerka kala la xidhiidho sidoo kale printerka uu la xidhiidho macnaheedu waxa weeyaan waa switchku waa backbone oo fideoga isla chapterka gudihiisa ku baran doonaa oo switchku wuxuu noo saamaxayaa kombiyuutaradan maxalliga ama local area network-ooda yaalla gaar ahaan laanka loo yaqaano Soha LANs inay wada xidhiidhaan halka routerkanu kuu saamaxayo in kombiyuutarradaadan halkan yaalla iyo qalabadaadan ay internetka gaari karayaan oo googlaa booqan karayaan oo haddii laakiin aanu routerkaasi oolin kombiyuutarkaagaasi dabadda cidna ula xidhiidhi kara mayso cidna la soo xidhiidhi mayso marka mas'ala faan haddii lagu weydiiyo switch waxa leedahay waa backbone waa laf dhabarta shabakadda maxalliga routerkan waxa leedahay waa laf dhabarta shabakadda ee weyn oo internetka baa lagu gaaraa basawirkan ilaag ama chiefkan ilaag sawirka yara chiefka halka waxa kaaga muuqata waxa leenahay waxaana waa Soha LANs waxaan ku garanay Soha LANs tahay waxaan ku garanay ka waxa yaala horta waxa yaala hal switch oo qura iyo hal router internet inuu gaarsiinaya ya one access point access point waxa weeyaan router qalabaanteeda hadda qodobka u fiirso hadda qalabka meena soo baxaya qodobka u fiirso aan dib ugu noqdo si aan wax iskula fahanno ha qalinka soo bixi maayo laakiin san ilaag halka waxa yaala waxa su'aalaha switchka maadaama yar ka hor aan ka waranay switchka routerka farqa u dhaxeeya waana switchka ku sheegnay in kombiyuutarada halkan yaala ay awood yeelan wada xidhiidhaan haddaan isagu oolin kombiyuutarka lama xidhiidheen kombiyuutarka la xidhiidhayna ma jiro isla fahanay routerkan waxaan sheegnay in dhammaan kombiyuutarada si internetka u gaaraan iyo shabakooyin kale oo magaalo kale ka dhisan in routerka loo baahay hadda waxa su'aala access point-ga maxaa loogu baahnaa sababta access point-ga loogu baahnaadaan ku sheegaya waxa weeyaan kombiyuutarkaagan switchka wuxuu kula xidhiidhmayaa xarig laakiin waxaa jira qalabaan badanaa u baahan ama sa moobiladeena aan xarig magaranaysa aan si toos ah ula xidhiidhi karayn switchka oo moobilkaaga intaad xarig gelisid baad geen karaysaa halkee switchka meel suurtagaaltaas ma sidoo kale laabtoonada maadaama lala soo soconayo oo marba xafiis la fadhiisanayo maaha desktop kombiyuutarada meel loogu sheegaaga sidaa darteed maadaama ay kuwan yihiin kombiyuutarada iyo laabtoonada dhaqdhaqaaqayo oo marba qol la galayo iyagu si toos ah switchka ula xidhiidhi karmaayo loo keenay access point-ga deetana access point-ga ayay iyagu xidhiidhmayaan access point-guna switchka kusii tuuraya switchka routerka kusii xidhaya routerka internetka ayuu soo wada xidhiidhaya marka haddii Soha LANs haddaan soo gudbo waxa leedahay waa shabakadda ku dhisan dhowr kombiyuutaro yaala hal switch hal router one access point haddii loo baahnado baa loo yaqaano qalabka maxaa loo yaqaanaa 4AB ama voice of internet protocol iyo hal printer iyo laba laptop iyo saddex computer wixii noocaas shabakadda ka dhisan LAN-ka loo yaqaana Soha LANs baa loo yaqaana waxa su'aala shabakadaadan Soha LANs-ka laba midkood bay noqonaysaa shabakadaadan Soha LANs-ka laba midkood bay noqonaysaa isla Soha LANs-ka laba si kala qaybinayna oo sawirkan ba kaaga muuqata ama sawirkeenanba qayb switchkii uu kula xidhan si xarig ah iyo qayb switchkii kula xidhan si xarig la'aan ah marka waxa Soha LANs-ka loo qaybinayaa waa laba qaybood waxa loo qaybinayaa laba qaybood oo ah Soha LANs-ka laba qaybina waxaan qayb switchkii kula xidhan si xarig aan xarig baa kan soo maray waa silfan oo waxa loo yaqaan waa wired Soha LANs waa qayb shabakadii Soha LANs-ka kaga tirsan iyadoo xarig u maraysa iyo qayb aan xarig aan u marayno wireless ahaan ama bluetooth ama wifi-ga ku gaadhay oo loo yaqaan wireless baa loo yaqaan labada qaybood laba sibood ku heli karaysa oo imika guryaheena waxa yaala bilinka guryaheena ma Soha LANs oo internet pressing waxa leeyahay Soha LANs saan ku cadeyn karayna waxaan ku cadeyn karayna waxa leenahay gurigeena waxa yaala hal router baa yaala soo ma guryaheena monitor niyo hal router baa ni yaala inagu waxaan isku qaadanaa waxaan dhahnaa internetka la soo saraado ama internetka naga baqtiisan waa taas waa khalad laakiin qalabka gurigeena noo yaala waxa loo yaqaan waa routerka internetkeena geenay laakiin soo internetka ma hada qodobka meel isla dhignay haddaba routerka gurigeena noo yaala gurigo kale waxa ba jooga 7 qof oo kaliya ama 5 qof ba yaala 5 qof mid wuxuu haystaa hal mobile Samsung uu haystaa oo kale qof wuxuu haystaa hal mobile Samsung inantooda reerka ugu weyn waxa ay haysataa hal computer bay haysataa oo PC computer laba wiil oo kale waxa haysan iyaga laptop haysta hay wataan laptop odaygii reerka wuxuu haystaa mobile yar Huawei ah haddaba reerkaasi
dhammaan internetka u baahan yihiin inay gaadhaan sidaa darteed waxa ay ku xidhmayaan routerka deetana routerkuna internetku geenaya haddaba waxaan su-aalaan ku weydiinaya adiga ma reerkan routerka mise xadhigay ku gaadhaan oo ma xadhig bay ugu xidhmaan mise xadhig la-aan bay ugu xidhmaan badana xadhig la-aan bay ugu xidhmaan oo ma jiro computer intuu xadhig ka soo baxo routerkan marka guryahan ka hadlay marka guryaheena la joogo oo dhammaan guriga waad soo gashaa isla markiiba internet routerka SSID giisa ku soo qabta saasad internetka ku qabataa SSID gu waa maxay waa routerkiina magaciisa ayaa loo yaqaana SSID service set identifier baa loo soo gaabiya oo adiga ilaa magacaad ka bedelaysaa haddii iminka reerkiina oo kale reerka niga xigoo kale passwordka loo ogaadaan ama isleeda hide garee passwordkiina hide garee maxay SSID giina ama magaca routerkiina waxaa loo yaqaana SSID baa loo yaqaana qodobada waan gaari doonaa ma rabin inaan xuso haddaba waxaan intaan aanu sheegay waxa weeyaan badanaa soo helaan iska xafidayna ka dhisan wired maaha waa wireless laakiin markaad shirkadaha aadka u yaryar laa tagtid ee soo helaan iska ku dhisan nooc ay adeegsadaan waa wired iyagoo labadaba adeegsanaya waad arki karaysaa marka sida sawirkan kaaga muuqata kan waa routerkii labadan computerka PC-ga iyo printerkan si wired soo helaan iska kaga tirsan tabletka iyo labada tabletna axpontiga soo maraya si switch ugu xidho switchkuna routerkana internet intaasaan ku soo koobinaa videoga soo socda waxaan ku warrami doonaa noocii labaad ee soo helaaniska loo yaqaanay noocii labaad ee laaniska soo iskeli jiray ee loo yaqaanay Enterprise LAN. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.